رسول الله صلى الله عليه وسلم كسو دوادا توسي تي في توسي بودكاست magacaygu waa maxamed iid maanta aniga barnaamijka inoo hogaaminaya insha allah waxaa marti inoo aynala jooga walaalkeen mahad cumar waa nin dhalinyaro aqoon-yahana wax ka bartay geologyga iyo technolojiyadda sidoo kale wuxuu ka mid yahay madaxda tosi t v wuxuu dhalinyarada la shaqeynayay labadii sane ugu dambeysay insha allah maanta waxaan ka wareysan doonaa dhalinyaranimada iyo doorka uu saaxiibku ku leeyahay insha allah intaynaan arrintaa u guda gelin waxaan jeclaan lahaa inuu hal iyo laba noloshiisa ku saabsan ina yidhaahdo kusoo dhawo programka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you brother. aad baa mahadsan tahay maxamed iid sidoo kale sheegay waa Mahad Cumar laakiin oo hadda sanadka waxaan meeshaan joogaa 13 sano Mareykanka joogaa waxaan bartay geologyga ayaan bartay oo weli wadaa takoon dhameeyay IT-ga waxaan ka bartay laakiin waxa aad igu qaali ah in hadda qabto waxa weeyaan qaybtan ka mid ahaado Tosi TV ilaahay oo ila simay inaan kala qayb galo dhalinyarta hagan maxamed iid iyo maxamed shariif oo aad baan u mahadsannahay sidii soo dhaweeyeen waa program aad muhiim u ah waayo anu waxyaabo badan aniga saameeyay oo waxyaabo badan baan iga caawiyay intaan hadda wadada saxda ku soo laabtay maasha allah mahad kaliya tosi t v nagama shaqeeyo waa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo dhinaca diintana waxyaabo badan ka qabta culimo badan oo masaajidada ana asxaabay yihiin marka connection hadaa u baahantihiin waa ninkaad la hadli lahaydee waa isaga insha allah barnaamijkan gudagalaynaa su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay waa maxay marka hore dhalinyaronimadu waa shay aad u muhiim ah horta oo aanan ogaanin ilaa aan dhalinyaronimada ka baxay waan u eekaay laakiin yaana waqtiga lambarada yaana eegin laakiin waa waqtiga ay waxyaabo badan aad ka faa'iidi kartid oo waxyaabo badan aad baran kartid waa waqtiga aad haysid xoogna waa haysataa waqtina waa haysataa dad badan oo ku caawina waa haysataa oo markasta garabkaaga taagan waa waqtiga dadka lagu kala leeyahay inay wax bartaan waa muhiimaddu waa waxa la rabaa inay isanfici karaan dadkoona wax u qaban karaan weli dhalinyara tahay waxba numberka dib ugu noqon mayno anigu adiga weyntahay taas waa noqon laakiin waa ku soconayna insha allah marka dhalinyaranimada iyo saaxiibtinimadu door muhiima bay ku leedahay bulshada weliba dhalinyaradu mar walba asxaab badan bay leeyihiin tusaale ahaan aniga adigoo kale imika laba nin oo asxaab baan marka saaxiibtinimadaasi door intee leeg bay ka ciyaartaa qofka dhalinyarada noloshiisa iyo mustaqbalkiisa wala aad bay horta muhiim ugu tahay dadka asxaabta aad la noqotid mana ogaanaysid ilaa aad ka baxdid waqtigaas oo ama wax ay ku saameeyaan oo gadaal uga baxdid oo noloshaada aad soo eegtid muhiimad ay tahay in asxaabtaada aad dooratid oo kuwa wax ku taraya mustaqbalkaaga iyo diintaada wax ku taraya yihiin oo ayna waqti lumis badan ay ahayn oo haddii aadan dooran dee asxaab wax ku taraya waxaad ogaan doontaa uun markaa waqtigii kaa tago ee fursado badan ay kaa fakadaan oo wax iskugu tari lahayd ama dadka wax ku tari lahayd unbaad ogaanaysaa muhiimadda dhalinyarimada asxaabta aad dooranaysa ay tahay taas baa waxay soo xasuusisay mataqaanaa abubakar sadiiq radiallahu canhu saxaabiga weynaa jaliilka ahaa saaxiibtinimadu faa'iidada isagoo lahayd waayo sidaan ognahay waa saxaabigii koobaad ee ugu soo hor islaamay marka laga yimaado khadiija oo xaaska rasuulka ahayd sallallahu alayhi wasallam sababta marka la sheegana maadaama uu saaxiibka koobaad ee rasuulka ahaa sallallahu alayhi wasallam wuxuu noqday qofkii koobaad ee risaalada qaatay macnaha saaxiibtinimadu way u fiicnayd waayo dabeecadaha iyo dhaqanka rasuulka oo uu wanaag ku ogaa sallallahu alayhi wasallam baa waxay ka saaciday inuu aamino fariintii uu siday inkastoo macnaha waqtigaas ay adkayd inay dadku qaataan fariinta waayo nintu iskaga kaa yimaado haddii ku yidhaahdo dee ilaahay baa soo diray way kugu adkaanaysaa laakiin isagu macnaha wanaagiiu ka ogaa daacadnimadiiu ka ogaa ammaanadiiu ka ogaa runsheegnimadiiu ka ogaa
baa waxay ka caawisay inay u fududaato inuu noqdo qofkii koobaad macnaha marka laga yimaado qoyska nabiga sallallahu alayhi wasallam marka macnaha muhiimadeeda halkaas baaba tusaale inooga filan marka bal wax yar intaynan saaxiibka wanaagsan ka hadlin haddaan dib ugu noqono saaxiibka xun iyo saamaynta uu ku yeelanayo qofka uu saaxiibka leeyahay noloshiisa arrintaa wax yar nooga iftiin insha allah horta markaad dooranaysa saaxiibka waxa kuu muuqata waxa weeyaan qofku muxuu ka rabay horta saaxiibka qofkaas saaxiibka maxay ku saaxiibeen maxay isku yimaadeen marka waxay kolba aad xiiseynayso dadku waa helaysaa waqti waxaad u baahan tahay haddaad u baahan tahay dee qof aad kubad isla ciyaartiin qofkaas waad helaysaa oo intaa kubad way ku eegtaa sheekada haddii kalena waa inaad ku xidhatid qof laakiin marka diintii qof aan ku xidhnay aad la socotid adaa diinta kuma xidhnaanaysid waayo waxaad caado waxa kula noqonaysaa saaxiibkaa wuxuu samaynayo maanta dhan hadduu ku dhaho oo isaga waxaad rabtaa inaad istustid waxa weeyaan waqtigaad waxa ku jirtaa dhallinyaramooda oo waqtiga aad ku jirtid inaad heshid meel aad adigu aad ka mid noqotid dad baa raadinaysaa marka qaarkood adoon ka fikirinba dee muhiimadda ay tahay saaxiibka saxda ayaad gelaysaa meel aan lagugu talagelin oo adigu isugeyn mar haddaad geshidna markaad mar samaysid bes waxay kula noqonaysaa caadi kula noqonaysaa waxa weeyaan mar labaad haddaad samaysid waa oreed waa samaysay maxaa dhibki ka jira weeyaan marka caadi kula noqonaysaa wixii xumid aad samaynaysa mar keliyan bay kugu filan tahay mar keliyan aad samaysid oo lagu arko marka waxaad leedahay tallaabada koowaad dhinaca xumada markaad hal mar u qaadid macnaha maadaama saaxiibadana samaynayaan waxay kuu sahlaysaa inaad horay ugu sii socotid waayo macnaha group baad ka mid tahay marka macnaha dad baad ka mid noqotay waxaad yeelatay identity iyo wax lagugu aqoonsado marka ma rabtid inaad identityga ka tagto sidaa daraaddeed waad sii wadaysaa xumaantii waad sii wadaysaa you wanna feel like you belong inaad ka mid tahay inaad noqotid weeyaan haddee groupkii dhan gees iska maraan hadda lix baad tihiin ka soo qaad lixdii mid dhinac bay isku wada raaceen inay wax sameeyaan wixiina wax fiican maaha laakiin peer pressure wax la dhaho oo da kugu kalifaya inaad iyaga raadid ayaa meesha jira oo waxay kugu kalifaysaa inaad dhahdid iyaga way sameynayaan haddaan ka noqdaan bay ku dhahaan dee waa taqaanaa dee dhalinyartuna marka lagu dhaho ninkan wadaad baa tahay waxay u malaynayaan inaad wax qalada macnaha qof jaahil dadka ka dambeeya macnaha wadaadnimadii cilmi iyo uma qaadanaysid darajo aad gaadhay waxaad u qaadanaysaa inaad dark mode iyo jaahiliyadii adigu ku jirtay waxa u sameynaysaa ma aha inaad wixii aad jeceshahay wixii xun inuu yahay aragtaa ma sameynaysaa wixii aad jeceshahay ma sameynaysid ficil ahaan u sameynaysaa inaad tustin inaad khatar tahay marka macnaha maadaama hoos loo dhigay wanaagii xumaantiina kor loo qaaday waxaa aad u fudud inuu qofkii xumaantii qaato halkuu wanaagga ka raacayo okay da'da intee leeg bay saameyn kaga yeelata arrintaas waayo macnaha dhalinyaranimadu waa qaybo kala duwan tusaale ahaan iminka markaan ka hadlayno 15 jir ilaa 18 jir 18 jir ilaa 25 jir 25 ilaa 30 jir macnaha ilaa 40ka waa dhalinyaro baa la yiraahdaa waana darajooyin kala duwan marka inta ugu badan ee qofka bini'aadanka waliba dhalinyarada uu dhibaato ku dhacaana waxay u badan tahay inta 25 ka hooseysa marka da'da iyo yaraantu saameyn inta lag bay ku yeelanaysaa markay saameyn ahaan aad iyo aad horta aad bay saameyn ugu yeelanaysaa waqtiga kaliya dee aad dooranaysa saaxiibtinimada marka weynaatid dan kama lehaysid markaa shaqaynaysid mashquulsan tahay saaxiibtinimada waxba kaama gelin muhiimadda aad markaa rabtiin inaad dad heshid waxa weeyaan markaad ka yar tahay dee waqtiga high schoolka ku jirtay weliba waqtiga waa waqtiga waxaad dee aad raadinaysid maxaa cool ah waxyaabaha dadku ay ka helaan la sameeyo dee mar waxaa jirta dee in shaararka kor loo laalaabo oo dee xagga laga dhigo khatar ay ahayd oo dhexda laga xidho waa marka gabdhaha students gabdhihiina ay kasoo baxeen gabarnimadii soo gaareen ee rabtid inaad ay ku arkaan inaad tahay wiil khatar oo dee dhalinyaro dee asxaabta ka mid noqon kara waxaad i xasuusisay laba mawduuc oo insha allah barnaamijyada soo socda kaga hadli doono waalidka iyo karaamada iyo ixtiraamka ay naga mudan yihiin
oo macnaha fadliga ilaahay siiya diiniyan xaqa ay nagu leeyihiin iyo dhaqanka iyo ka bulsho ahaan ixtiraamka ay naga mudan yihiin iyo aas-aaska ay nolosha macnaha siday muhiim ugu yihiin korriinkeena iyo kobaceena laba mawduuc oo waalidka ku saabsan baan insha allah ka hadli doonaa barnaamijyada soo socda midna macnaha doorka waalidku ay qofka dhalinyarada noloshiisa ka ciyaaraan iyo macnaha xaqa waalidku qofka dhalinyarada ku leeyihiin sidoo kale drugs baad ka hadashay insha allah kolley mawduucyo badan oo arrimaha ku saabsan waan ka hadli doonaa waayo sidaan ognahay waa dhibaatooyinka ugu badan ee dhalinyaradeenna haysta gangska laftirkooda insha allah waan ka hadli doonaa laakiin si guuduun haddaan iminka kugu yarada horta drugska marka laga yimaado ka iskii u doonanaya ee maaragtay dee isagu hadda sababtuu doonaba ha u rabee dee isagoo iska macnaha weli aynan dhibaato u geysanin maaragtay fan iyo wax lagu ciyaaro haysta oo macnaha noloshiisa faa'iido u keenaya waa gooni kuwaas waan ka hadli doonaa insha allah laakiin waxaa jira qaar dhibaato ay ku hayso oo maanta macnaha ay xanuunku noqotay oo macnaha cudurro maadaama addictionkii ka tambatay noloshoodii sidii kaleba halis ugu sugan tahay iska dayntoodii iyo isticmaalkoodii labadiiba halis ku yihiin ilaahay kuwaas ha u gargaaro kuwaas aad u baahan yihiin kuwa haddaa caawin karto macnaha ka soo gabagabayn doonaa haddii la yiraahdo intaana soo xidhin hal iyo laba maxaad oranay horta aad u mahadsantihiin dadka oo markasta toosi tv u taagan inana caawiyaan falowarada oo dhan dadkan markasta sheergareynaya intaa daawanaya toosi ka warhaya aad baan ugu mahad celinaya horta kuwa talabaadna waxaan dhahayaa insha allah la socda barnaamijyada soo socda waxaan rabnaa meeshan keliya inaan ka hadalno maaha waxa weeyaan meel aan ku raadinayno xal oon xal inaan wax u helno maanta dhan waan ka hadli karnaa laakiin xalkii baan ku gada jirnaa oon rabnaa inaan ka bedeli karno dhibka jira dhalinyarta weliba xagga qaybta dhalinyarta marka insha allah haliska warhayo aad baa umahadsantihiin ilaahna barakeeyo ilaaha xafido ilaahay hanoo dambi dhaafo kuwii wadada saxda ilaahay ku toosiyo ilaahna dhigo jannada firdowsana ilaahna wada kulmi insha allah jazaaka allahu khayr walaal mahad ilaahay ajir iyo xasanada kaa siiyo waanad ku mahadsantahay barnaamijka kasoo qaybgalkaad kasoo qayb gashay intaanan ka bixin insha allah waxaan u sheegayaa dadka barnaamijkan toosi ku xidhan insha allah haddii ay jiraan dad khubaro ah ama culimo ah ood isleedahay barnaamijkan inay ka hadlaan oo dhalinyarada wacyigeliyaan ama adiguba aad tahay qof culimo ah oo jeclaan lahaa inuu la hadlo dhalinyarada iyo bulshada soomaaliyeed ee ku xidhan kanaalkan iyo ama qof aad tahay dhalinyaraha oo jeclaan lahaa in ama la caawiyo lala hadlo la dhegeysto gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin xafiiskayagu idinku idin furan yahay madkaad rabtaan baad noo iman kartaan waqti walba iyo goor walba xeegan baan idinahay insha allah waanan soo dhaweynaynaa qof walba oo aragti tala tusaale iyo toosin baa noola imanaya jasaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi